مير بيلاس قوبين مرارة دلاع مبوسين مير بيلاس قوبين مرارة دلاع مبوسين إن أنا محبي وكالقع الميلان ماشي فرحتي مقابيني ماشي فرحتي مقابيني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jecelahay inaan muuqaaladan kooban ee ku tiirsan sawirka malaayin badan baa May laga sheekeeyay dabaaldega 18 May hadal ahaan hees ahaan ama fiidiyoba bal markan waxaan isku dayaynaa maadaama ay soddon guuradii tahay annagoo idinku hambalyeynayna meel kastoo aad joogtaanba soddon guurada ka soo wareegtay 18 May maalinta madax bannaanida qaranka Somaliland oo ka dhacday magaalada Burco 18 May 1991 waxaan jecelahay inaan kaga qayb galo sawiradan dhaxalgalka ee taariikhiga oo qaarkood markii ugu horeysay arkaysaan shirka dhacay bishii February magaalada Berbera gaar ahaan hudheelka Yaxye qaybta hoose ee underground-ka oo galbeed u jeeda markii ugu dambeysay doobiga hudheelka ahayd oo dharka lagu maydho 2010 meelahaas laakiin tiimka aanan garanayn waxay tahay ayaa waxa ku qabsoomay shir wada tashi ah oo dhex maray gudoonkii ururka gudoomiyihii madax u yahay xubno gudida fulinta xubno golihii dhexa iyo mudankii ururka iyo qaybo kamid ah madax dhaqameedkii Somaliland ee goboladii waqooyi markaa Somaliland ma jirin waxa lagu heshiiyay in guurtidu ay qaban qaabiso shirweyne lagu suntay shirweynaha walaalaynta beelaha waqooyi oo ku qabsooma magaalada Burco iyadoo kamid ahayd magaalooyinkii yaraa ee aan khasaaraha weyn gaarin ama laga markaa Hargeysa laga dhigo laga helayay xoogaa meelo lagu shiri karo ama la dugaashan karo guddi qaban qaabo ayaa la sameeyay oo ka koobnayd ururka iyo madax dhaqameedka iyo golihii guurtida waxa cayimeen 27 Abriil inuu shirkaasi ku qabsoomo shirweynaha walaalaynta beelaha waqooyi magaalada Burco duruufta adkayda dalka taaleeba suura galin weyday dabeedna 5 May 19 ayaa shirkaasi ka furmay gelinkii dambe magaalada Burco meel dhismayaashii dawladda kamid ahayd oo yar duusaneed oo qolol yar ahayd oo ahayd meeshii ugu roonayd ee markaa wax lagu qaban karayay ayaa lagu qabtay galabnimadii maalin sabti ah ay ahayd markii salaada casr laga soo baxay muuqaalka ugu horeeya waa Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur naxariistii janno Ilaahay ka waraabiyo gudoomiyihii SNM dhexda waxa fadhiya gudoomiye ku-xigeenkii Xasan Ciise Jaamac oo ahaa markaa isaguna gudoomiyihii madasha sharfaneyd ee la isugu yimid waxa ku xiga Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf Sheekh Madan oo ahaa gudoomiyihii golaha guurtida naxariistii janno Ilaahay ka waraabiyo intaasaa fadhiday dabeedna laba sawir baa raaca labada sawir ee raaca waxa weeye sawirada dadkii xafladda furitaanka ka soo qayb galay oo meel bannaan oo qolalkii dhexdooda ah fadhiya shirkii saasuu ku furmay dabeedna waa la kala tegay waxaa loo kala tegay xubnihii ka socday goboladii dalka ergooyinkii matalayay ergooyinkii dhaqameed ee suldaan lahayd ee garaad lahayd ee oday kale lahayd ayaa loo kala tegay oo shirku u gaar ahaa dabeedna 5tii 6dii 7dii ilaa bisha 8deedii ayay shirayeen
waxaanay soo saareen laba qodob halkaa intaanan idiin dhaafin faq iyo fagaaraba shirka waa lagaga qaybgelayay sawirka kale muuqda ay arkaysaan waa cabdiraxmaan axmed cali sheekh yuusuf sheekh ibraahim iyo sheekh axmed nuux furre oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtida oo iyaguna ku jira meel madashii shirka dibadiisa ku wada tashanaya wax isku weydiinaya kadib go'aamadii baa soo baxay oo 6 qodob ahaa waxaa akhriyay aadan axmed diiriye oo ganacsade guurtiya ah oo nool aadan baradho ayaa loo yaqaanaa faysal yare ayaa hortaagan oo ka duubaya dabeedna 6 qodob ayuu halkaa ka akhriyay shaashada ayaa ka akhrisan doontaa qoraalkii iyo saxiixii odayaashu ay idinku yaaliin haddii aan halal ka soo qaado in waqooyi gaar isu taago in dalka lagu xukumo shareecadda islaamka in la ilaaliyo nabadgelyada in waqooyi dowlad gaara loo sameeyo in xilalka ururka iyo hay-adaha kaleba si siman loo qaybsado in xil gaara la iska saaro nabadgelyada sanaag mabda'iyan intaas ayay ahayd naskii iyo qoraalkii rasmiga ahna waa ka hortiina yaala qaybta shirkii walaalaynta beelaha waqooyi ee odayaashu sidaa ayay ku dhammaatay go'aamadii ka soo baxay ayay 6 qodob ahaayeen oo go'aamay u ahaayeen guurtidii Somaliland guurtidii waqooyi ee halkaa ku shiraysay waxaa loo gudbiyey golihii dhexe SNM oo ahaa hay-addii sharci dejinta ee dalka ugu sarreysay 8 May ayuu kalfadhigaasina furmay kalfadhigii labaad dabeedna xoghayntii golaha dhexe ee SNM way qaaday halkii ay qodobadaasi ajenda ku lahaayeen ayay gelisay halkaa isaseeg yar baa ka yimid qolada guurtidii iyo dadweynuhuba waxay filayeen in qodobada ay soo jeediyeen ee soo jeedinta ku ahaa golaha dhexe go'aamadana uu ahaa guurtida in halka sare laga geliyo ajendayaasha maalinta xigtaba haddii lala daaha maalin labaadaba loo gorfeeyo oo golaha dhexe wuxuu kaga tashanayo uu kaga tashado golaha dhexe sidaa muu yeelin xogeyntii golihii dhexe dhaqankii ay u shiri jireen bay raaceen oo qodobadii ugu horreeyay ajendahoo dhammi waxay noqdeen wax procedure ururku lahaa xubno galo dhexoo bannaan sidii loo buuxin lahaa iyo qabyadii kale ururka u tilay intaan howlaha kale la gelin waxaan isleeyahay qodobka 8aad ayuu ajendihii ka galay soo jeedintii aroorul sheekh ibraahim iyo markasta naga soo baxaan wayna weydiin jireen war arrinkii waa lagu soo socdaa qodobadii ayaa lagu jiraa waxaan xasuustaa guud ahaanba shirweynaha walaalinta beelaha waqooyi iyo kalfadhigii iyo wixii kulama dhacayayba halmuceedkoodu wuxuu ahaa nabadayn walaalayn dib u heshiisiin 10 sannadood oo dagaal sokeeye ahaa iyo halgan hubaysnaa oo dib u xoreyn qaran oo ciidamadii cadowga iyo SNM ay isku fool isaga hor yimaadeen markii dalka la xoreeyay lama huraan ayay noqotay in nabadii iyo dib u heshiisiintii iyo wada noolaanshihii iyo xulba la soo celiyo bisha 15keedii sawirradana waa ka arki doontaan golihii dhexe SNM oo ahaa 89 lagu doortay balligubadle iyo 10 kayd ahaa oo malaha 2 la magacaabay laakiin tii 8 ay harsanaayeen ayaa si loo adkeeyo midnimada dib u heshiisiinta walaalaynta iyo nabadaynta waxaa la isla gartay in 6 xubnood oo beelihii aan ka tirsanayn ama aan ka tirsanaan jirin SNM lagu soo daro golaha dhexe 6 shakhsiyadood oo ahmiyadooda lahaa
lafdhabarna oo ahaa arrimaha dib u heshiisiinta ayaa goli dhexe la soo fadhiisiyey dabeedna goli dhexe la weydiistay in cod in qof gacanta loogu taago oo loo codeeyo sawirraduna waxay u kala horeeyeen jaamac Rabiile Good oo gobolka Awdal ka socday waa sawir keligiya General Yusuf Tallan Cali oo ka socday gobolka Awdal oo ay wada sawiran yihiin ama mar la wada sawiray Maxamed Saalax Cabdalle oo ka socday gobolka Sanaag Bari waxa ku xiga Maxamed Cali Caateeye oo gobolka Sool ka socday kana mid ahaa waftigii Garaad Cabdilqani ee noogu yimid xaruntii SNM ee Beligubadle Sebtembar 1990 laba sawir ma hayo inay sawirradayga dhex lumaaniyeen kanaan kala garanayn mid waa Maxamed Buraale Ismaaciil oo xafiiskii shaqaalaha ee dawladdii Maxamed Siyaad Barre in badan ka soo shaqaynayay kalna waa Cali Faarax Dhahar oo midna gobolka Sool ka socday Maxamed Buraale Cali Faarax Dhaharna ka socday gobolka Sanaag Bari marka lixdaas ayaa lagu soo diray bisha 15keedii dabeedna goluhu hawlihiisii buu watay waxaan xasuustaa in qolo kale oo mujaahidiina iyo dadweyne sootaa ay ka yimaadeen iyaguna berbera si ay u xoojiyaan in la soo hormariyo qodobadaas dabeedna kalfadhigii golaha dhexe dhacay kalfadhiga golaha dhexe ayaa lagu gorfayay qodobadii sidii ay ahaayeen uu u ogolaaday golihii dhexe oo isaguna go'aamadiisii ka soo saaray waxaa sawirka ka muuqda xubnihii golaha dhexe oo shiraya waxaa ka muuqda Ibraahim Migaag Samatar oo ahaa guddoonshii golaha dhexe Cabdiraxmaan Axmed Cali Mujaahid Boobe dad badan oo caynkaas ayaa ka arki doontaan oo qaarkood sawirrada magacyada idinku qoran yihiin sidaas ayaa lagu guddoonsaday bisha 17keedii horta maalinta galabta ay berber dadkaas ka yimaadeen iyaguna soo xoojiyeen dadkii reer Burco iyo dadkii meesha joogay iyo wixii oo dhan galabnimadii hoolkii baa la isugu yimid pressure badan ayaa golii dhexe la saaray golii dhexe waxay ka dambeeyay 5tii galabnimo habeenkii lama shirayn wuxuu guddoonsaday in go'aanka la qaadanayo dabeedna subaxnimadii 17 ayaa mowduucii dood ahaan loo galay sidiina waa lagu guddoonsaday waxa la ogolaaday go'aamada ka soo baxay guurtida ee soo jeedinta ku yimid kalfadhiga golaha dhexe waxaa la ogolaaday 17kii May 1991 shirka waa la yar xidhay Ibraahim Migaag baa soo baxay inkastoona sawirka haynin Cabdiraxmaan dadkay la hadleen anigu xogayaha warfaafinta ahaana warkii baan qaaday radio Hargeysa ayaan geeyay markaa dabaaldega rasmiga ah iyo maalinta rasmiga ah ee ku dhawaaqidu waxay noqdeen 18kii May oo ahayd maalintii ku xigtay 1991 iyo xarunta gobolka Togdheer halkaasoo calankii laga taagay dadkuna isku soo baxeen qaybtan koowaad waxaan idinku hakinaynaa halkaa kalfadhiga golaha dhexe uu ku ogolaaday madax bannaanida Somaliland go'aankii uu soo saaray golaha dhexena wuxuu u qornaa dalka waxa dib loogu celiyay xaaladii sharciyeed ee uu ku sugnaa June 26keedii 1960 taasi waa qaybtii koowaad waa inoo qaybta labaad oo ah dabaaldegii fantasiyihii iyo wixii quwana kala raaci kara anoo jecel inay la wadaagtaan wixii sawirra ah ama kayda
aan ku hayaa aqalka sawirada dhammaantood anaa wada sawiray kamiro gabadhan waa nahay ay London iga soo dirtay oo Pentax trade maarageedu yahay walaashay Sacdiya ayaa ii soo dirtay si yaro habaysan baan u dalban jiray sawirada dhalinyarada dibadda ka timaadee shirar ka soo qayb gasho waxaan weydiisan jiray ama aan la xiriiri karo inay filmo black and white ii soo diraan markaan sawireen buuxiyana walaashay baan u diri jiray Sacdiya ii soo sifayn jirtay sidaasaan sawirada ku kaydin jiray kuna hayn jiray 3 kamiro ayaan adeegsaday intaan hawsha ku jiray Pentax tii labaad baa ahayd waxa ka horeysay Canon A Jubayl iga soo diray Xaashi Xuseen Caabi oo xildhibaan ah 83 bishii July oo shirweyne saddexaad ahayd igu soo dhiibay Sheekh Mataan Al-Humaami firdhabaal iga xaday dabeedna tan Pentax-ka ayaa timid sidii baan iyadana u hayaa sawirada waxaan ku qaaday kamiradaas sidaasaan xuquuqda daabacaadana ku sheeganayaa aan jeclahay idinkuna ila wadaagtaan waa inoo qaybta dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu miyay miir beelas qobeen marana dilaac ma quusteen miyay miir beelas qobeen marana dilaac ma quusteen inana muxibiyo kalgacal milan maashee farxadii magaabineen maashee farxadii magaabineen